Inkastoo airporada ay ka mid yihiin goobaha dhaqaale ee ku tiirsan dal waliba, haddana waxaa jira 5 dal oo aan lahayn wax airport ah. Haddaba guys, inta barnaamijkeena gudaha u galin, waxaad idinka codsanaynaa inaad noo subscribe gareysaan channelkeena, noo like gareysaan. Waxaa jira 5 wadan oo qaaradda Yurub ka tirsan oo aan lahayn wax airport ah. Haddaba waa kuwee dalalkaas aan airport lahayn? Waxaa ka mid ah Andorra. Waa dhul go'an oo u dhexeeya Faransiiska iyo Spain. Waa dalka ugu weyn ee liiska dalalka aan lahayn garoomada diyaaradaha. Baaxadda Andorra waxaa lagu qiyaasaa 468 kiiloomitir oo laba jibaaran, waxaana ku nool dad gaaraya 100,000. Garoomada diyaaradaha ee ugu dhow waa garoonka Barcelona, El Prat ee Spain, iyo Toulouse oo ku yaala wadanka Faransiiska. Garoomada diyaaradaha ee Toulouse iyo Barcelona labaduba waxay 3 saacadood u jiraan dalka la yiraahdo Andorra. Wadanka labaad waa Liechtenstein. Waa wadan aan bad lahayn oo ku yaala inta u dhaxaysa Switzerland iyo Australia. Baaxaddiisu waa 160 kiiloomitir oo laba jibaaran, ama 62 mayl oo laba jibaaran. Waxaa ku nool dad lagu qiyaasay 35,000. Tigidhada diyaaradaha ee ugu dhow Liechtenstein waa madaarka Zurich ee Switzerland, kaasoo u jira 130 kiiloomitir ama 80 mayl. Garoonka kale ee diyaaradaha ee ugu dhow waa madaarka St. Gallen, kaasoo sidoo kale ku yaala Switzerland, una jira 50 kiiloomitir ama 30 mayl. Liechtenstein waxay leedahay hal garoon oo yar oo loogu talagalay in lagu isticmaalo helikobtarada, oo ku yaala Basel. Dalka saddexaad waxaa la yiraahdaa Monaco. Waa dalka saddexaad waa dal 3 dhinac kaga xiga Faransiiska, dhinaca kalena waxaa ka xiga badda Mediterranean-ka. Monaco waa dalka labaad ee ugu yar ee adduunka, kaasoo baaxadda dhulkiisa kaliya ay tahay 2.2 kiiloomitir ama 0.78 mayl oo laba jibaaran. Iyo dadka ku nool dalkaas waxaa lagu qiyaasaa 36,371 ruux. Tigidhada diyaaradaha ee ugu dhow Monaco waa madaarka Côte d'Azur ee magaalada Nice ee dalka Faransiiska. Monaco waxay leedahay hal garoon yar oo ku yaala degmada Fontainebleau. Dalka afraad waxaa la yiraahdaa San Marino. Waa dowlad yar oo aan bad lahayn oo ay dhinac walba kaga hareeraysan yahay Talyaaniga. San Marino baaxadda dhulka ayaa qiyaastiisa gaaraya 61 kiiloomitir oo laba jibaaran, ama 24 mayl oo laba jibaaran. Waxaa ku nool dad lagu qiyaasay in ka badan 30,000. Tigidhada diyaaradaha ee ugu dhow ee madaarka caalamiga ah waa Federico Fellini ee ku yaala magaalada Rimini, Talyaaniga. San Marino waxay leedahay hal garoon diyaaradeed oo gaar u ah oo ku yaala Tolosia, magaalo la yiraahdo, iyo garoon yar oo ku yaala Porto Maggiore. Dalka shanaad waxaa la yiraahdaa Vatican. Waa dalka ugu yar adduunka, waxaana uuna baaxaddiisa dhulka u gaarayaa 44 hektar, waxaana qiyaastiina ku nool dad gaaraya 840 qofood. Gebi ahaanba waxaa ku hareeraysan magaalada caasimadda ee Rome ee dalka Talyaaniga. Vatican ma lahan hal garoon diyaaradeed ama jidad waaweyn. Waxay leedahay hal garoon yar oo ay isticmaalaan baadariga iyo madaxda dalka soo booqda. Guys, halkaas waxaa noogu dhan dalalka aan lahayn wax garoomo diyaaradeed. Runtii waa barnaamij aad u xiiso badan saan filaayo. Guys, waxaan idinka codsanaynaa mar kale inaad barnaamijkeena subscribe gareysaan channelkeena YouTube-ka, aana like iyo share noogu qabataan, waxay commentiga hoose noo soo dhigtaan insha Allah. Kuley waa nooli kulantay insha Allah.